waxaa xalay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ka qabsoomay kulan ay soo qaban qaabisay dawladda dhalinyarada Somaliland ee Soonyo. kulankan oo qaadaan loogu ururinayay dadka ay abaaruhu ku habsadeen ayaa waxaa ka soo qayb galay gudida heer qaran ee gurmadka abaaraha, mas'uuliyiin kala socota ururada bulshada, laamaha dawladda iyo dad caanka ah Somaliland, ganacsato iyo marti sharaf kala duwan. waxaan ugu horeyn halka ka hadlay gudoomiyaha dalada dhalinyarada Somaliland ee Soonyo. ujeedada isku midna waxay inaan dareenka walaadnimo iyo wadanimo muujino walaalaheena abaarta ku dhacday oo tiradooda say abaartu saameysay iyo dhibaatada ku sugan yihiin oo ka wada deegsanahay. alxamdulillah intii hore uga qayb qaadatay ayada miisaanka xasanaadka ugu daro inteena caawa halka isku timaadeen intii karaankeena waxayna awoodna way noo qorsheen inteena joogta wixii dareenkeena ama dadnimadeena noqotayna awoodna way u diyaarin dadaalka aan dadku caawinayna inta ku istaagnaay. sidoo kale waxaa isna kulankan warbixin guud ka siiyay ka soo qaybgalayaasha halka ay marayso xaaladda abaartu. xubin ka mid ah gudida gurmadka abaaraha ee heer qaran. waxaan ugu faraxsanahay in dalada Soomaaliya ka soo qayb gala kulankan oo mataleysa dhalinyarada Somaliland wiil iyo gabarba. waa kulan muhiimadiisa leh xaqiiqatan oo laga maarmaana u maleyn maayo maanta inuu war idigu seeqan yahay dalka iyo waayaha ka jira. waxaan ka mid ah xubnaha tagay gobolka Sanaag ilaa waxaan gaadhay baran baan gaadhay marka Sanaag bari Sanaag la isku daro waxaad arkaysaa markaad ka daadegto wadada inaad fiilaad ka dhaadhacdo ilaa aad ka gaarayso meesha raayifle oo gobolka ciidda tagtay weeyii meel cagaaran ma jirto waa ciid dhulkaas weeg geedkii baa qalalay dadkii baa ka tagay duunyadii baa ka tagtay cid ku nool waaba yaraatay aad arkaysaa markaa ma jirto baad la'aan biyo la'aan cunto la'aan hoy la'aan caafimaad la'aan intuu markaas ay jirto oo ay tilmaaman tahay lagu qiyaasay 1 milyan iyo 500 oo qof ayaa culayskaasi uu haystaa. dareensanay marka inaynu dareenka ka qayb qaadanaana muhiimadeeda marka ay leedahay marka la isku naxariisto ilaahay noo naxariisanaya ilaahay waxa uu waayay uu dhargin karaa oo uu xay baahay uu siin karaa laakiin ay la eegaya inteena haysata ee qadaynaysa ee quraacanaysa ee cashaynaysa ayaa la eegaya. wararka haddii aynu kala qaadano ka gudi ahaan ilaahay baa wax qaban kara laakiin gurmad ayaa la sameeyay aynu ka mid nahay taqriiban goboladaas oo laga sameeyay haday tahay baadka ama cuntada iyo haddii ay tahay cabitaanka iyo biyaha ay ka mid tahay iyo haday tahay caafimaad laakiin wax ka qaban kara maaha. waxaana intii kulankani socday lagu soo bandhigay documentary film kooban oo muujinaya heerka ay marayso dhibaatada abaartu iyadoo dhanka kalena badi dadkii kulankan ka soo qayb galay ay ku yabaheen qaadaan hor leh oo ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka abaaraha. ka warrahan ururka ee ka jira gobolka Saaxil insha Allah waxaan ku tabarucaynaa $1 oo ku darsanaynaa abaaraha. Loo hadlayo magaca wasaaradda horumarinta iyo kheyraadka dalka Soomaaliland nidaamka ugu horumarista barnaamijka abaaraha waxaan ka qayb qaadanaa $500. intii uu kulankani socday ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan waxaana ugu dambeyntii kulankan soo gabagabeeyay wasiirka diinta iyo awqaafta ahna gudoomiyaha gudida gurmadka abaaraha ee heer qaran. ilaahay subhanahu wa ta'ala uu horeyn u hadnaqaynaa waxaan ugu hadnaqaynaa Allah subhanahu wa ta'ala abuuray min adam naga sameeyay ilaa naga sameeyay bashar naga dhigay islaamnimo nasiiyay iimaan nasiiyay naxariis ballarna markaas lagu deeqa nicmo fara badan oo la koobi karo ilaahay nasiiyay oo inta udu nicmatullaahi la tuhsuha ma hada ilaahay ka soo aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa dalada Soomaaliya iyo dhalinyarada runtii hablayeen oo leh goobta jooga caawa daafurkan inuu daafurayno qalaalka ka qayb gali jirtay weligiinba iyo sidii dareenka u muujinaysaan ama u muujin jirteen waxtarka bulshada ku dhex nooshihiin walaalihiin aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa. masaadarteed aad ku boorinayaa dareenka wanaagsan la timaadeen waa ka mahadnaqayaa عدشاننا ويقول بورني هذا الله يحضر إلهي سبحانه وتعالى وحودنا إن إلهي كأقبل صدقة نحرسنا نحرسنا إلهي كأقبل سبحانه وتعالى دريك أوتم ودان عاوز يقولني منا إلهي سبحانه وتعالى أجر حسنا نغسي وأنا نغسي الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى أن توبط كينه إلهي سبحانه وتعالى خير ودسنا اللهم أغثنا
اللهم أنزل علينا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث والرحمة ولا تهلكنا بالسنين. اللهم أنزل علينا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاما سحا طبقا مجللا إلى من حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.